sababtu jannada ilaahay uu taagay naarna uu u sameeyay maxay tahay laa ilaaha illaa hu inay adoomada sugaan inaysan jirin ilaah maahane asiga keligii mutaystay in lagu caabudo xaq ila allah maahane laa ilaaha ilaah ma jiro ila allah ilaah ma jiro mutaystay in la caabudo xaq lagu caabudo baryada loo qaas yeelo ilaa ilaahay maahane sida walaalayaal jirka ugu qeyr badan yahay madaxa ama wajiga ay aayadda ugu bilaabatay allah laa ilaaha illaa hu waxay tusinaysaa laa ilaaha illaa hu inuusan jirin ilaah maahane ilaah asiga aan ahaynin walaalayaal waxay tilmaantay laa ilaaha illaa hu inaan wax diidayno waxna aan sugayno laa ilaaha ilaah ma jiro baan leenahay oo maxay ka dhigan tahay ilaah ma jiro mutaystay cibaadada ducada gowraca wax kasto anaga afcaashayna cibaadada waxa ah asiga keligii inaan u sameeyno ayaan qiraynaa walaalayaal ka waran walaalayaal inaad salaad dukatay ama aad ka aqrinis alay allahu laa ilaaha illaa hu aad qof u sameynaysa ama si qofka ku arko am ducadan halagu maqlo in aad aqrinaysid ka waran walaalayaal nabi asam uu leeyahay lam yamna'hu dukhulul jannah illa al-maut qofkii yani markuu salaada lama kadib allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyum aqriyah wallahi nabi asam uu leeyahay kama reebayso yani jannada kama reebayso illa inuu geeriyo baahane lidalika walaalayaal qofka inuu badiyo afkiisa uu ku badiyo inuu aqriyo bacda salaah ayatul kursi waxa fadli dheeraad ah fadligaas oo kamid ah jannada inuu saaxiibkiisa yahay ficil wanaag bay tusaysaa ka waran walaal qofna ayatul kursi aqriyo baan iska baxay waqtiga geerino imaan isman qaanayo soomaan baa ba dhacsi ama xanuun ba ku soo booday uu dhintay maxaa ka qeyb badan walaalayaal lam yamna'u bulayhi nabi sallam yani ma dhacayso geeri un ba aga dhiman inuu jannada galo geeri baa ku diidaysa oo keenaa jannada gashid laakiin qeyr bad سجنت أبو الله سبحانه وتعالى دار المتقين. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا